iyadoo socota in dad waaweyn oo Soomaaliyeed oo magac leh ay u taagan yihiin in sawirka dhinaca kale ay u gudiyaan oo ay cabsi abuuraan oo magaaladan ay colaad ka dhacdo oo lagu kala cararo oo la isdilo oo dadku qabiil u noqdo in ay sidaas jeclaysanayaan dad Soomaaliyeed oo sumcad leh oo magac leh oo raba inay hogaamiyaan sidaasina u dhaqmaan wax aad iyo aad looga xumaado waana wax taariikhdeena nasiib darro ku ah iyaga kaliya kuma aha innaga nasiib darro nagu tahay waxaad mararka qaarkood mudan yihiin dadka Soomaaliyeed inay isweydiiyaan qofka aad u malayso mas'uulka aad u malayso inuu difaac ugu jiro ama uu sugayo in ay xabadi ka dhacdo meel ka mid ah magaalada Muqdisho si uu ugu isticmaalo siyaasad ahaan inuu cid ku waxyeeleeyo maxay tahay aragtidiisu muxuu rabaa inuu xukumo haddii dadku isdilaan oo dagaal dhacaan oo la islaayo yaa la rabaa in la xukumo qof jecel inuu dhibaato dhacdo oo qof Soomaaliyeed dhinto si uu siyaasad uga dhigtana sidoo rabaa inuu noo xukumo adiga uu rabo inaad dhimato oo markaad dhimato uu yiraahdo u jeedaa dadkii sida loo dilay in la isku dhacay waa u jeedaan in dhibaato dhacday waa u jeedaa qofka uu rabo dhimashadiisa iyo dhiiggiisa inuu siyaasad ka dhigto ayuu rabaa haddana inuu xukumo aragti aad iyo aad u waalan runtii oo caafimaadka ka fog waxaad ogtihiin dhacdooyin yaryar oo dad maleeshiyaad iyo waxyaabo la xiriira magaaladan ka dhacay in dad waaweyn oo mas'uuliyiin inta isku yimaadaan ay yani sheegaan inay weyneeyaan oo wax weyn ka dhigaan oo u muuqato yani sida ay qiimo u leedahay ula weynta meeshii ay ahayd in laga wada xumaado qof kasta inuu mas'uuliyadiisa ka qaato nabadgelyo darro wax lagu tartamo ma aha siyaasadna ma aha siyaasaddu nabadgelyo ka dambaysa iyo deganaansho meel ay ka jirto ayaa siyaasad lagu tartamaa qof raba inuu dadka xukumo haddana ka shaqeynaya inay nabadgelyo dhacdo muxuu rabaa ma inta dhibaato dhacdo oo dagaal dhacaan oo qayb naga mid ah qabsado qaybtaas inuu xukumo miyuu rabaa mise wuxuu rabaa intuu qoryo nagu qabsado oo qoryo nagu soo weeraro inuu qoryaha nagu xukumo xagee siyaasadda uga jirtaa in colaad la horiyo oo dadka la isku dilo oo dadka qabiil lagu celiyo waxa ka sii daran taas oo aad uga sii daran dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ah dad waaweyn oo kuma badna ee baraha bulshada isticmaala ee in badan oo kamid ah wadankan ay ku soo koreen ee waxa hor yaala mustaqbalkooda ay yihiin ee yaqaan meesha ay ka yimaadeen iyo baabi iyo dhibaatadii waxyeeladana soo gaartay in ay boombooniyaan fariimahaas oo ay gadaan oo ay iibiyaan iyagoo xiise ka raadinay waxaan leeyahay walaalkayga ama walaashayda dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed waxa la rabo halista in la geliyo waa aniga iyo adiga mustaqbalkeena waxa la rabo inay qaxaan oo la dilo oo dhiigooda la sheegto waa aniga iyo adiga waxa la rabo inay isku dhintaan oo isdilaan waa idinka taas siyaasad ma waxaan dhiiri gelinayaa oo aan aaminsanahay aragtiyaha nabadgelyada xambaarsan ee kala duwan in lagu tartamo dawladdu boqolaal dhaliilood ay leedahay boqolaal waxa lagu dhaliili karaa leedahay siyaasaddu boqolaal dhaliilood ay leedahay laakiin nabadgelyo darro in la horiyo oo laga shaqeeyo qof la dilay iyo cabsi la abuuray iyo taayir jid lagu gubay iyo dad isku dhacay dhibaato ka dhacday taas inaan aqbalna ma in aan boomboonino oo aan qayb ka noqonana ma sababtu maxaa waaye waxa ay dhalaysaa maxaa waaye bomboonintaas waxa ay dhalaysaa waa inaan garoonka injineeriyadii soo tagay waxa ay dhalaysaa waa inaan saacadan guriga sama la joogin waxa ay dhalaysaa waa inaan wax la baran oo aan caafimaad la helin oo aan deganaansho la helin oo aan noloshaan la helin dad badan oo dibadda ka yimid oo nabadgelyada wadankan ka jirta ay soo celisay oo ku raaxaysanaya joogista wadanka ayaad haddana arkaysaa in ay xambaarayaan fariimo ku celinaya meesha ay ka yimaadeen oo in magaaladan dhibaato ay ka dhacdo waxyaabaha qaarkood waxa ka mid ah wadanka waxna waa waxyaabo la wada leeyahay asaasi ah jiro maxaa ka mid ah waxa ka mid ah ciidamada qaranka waxaad ogtihiin wadankan 20 sano ugu dambeysay oo soo kabtay imise madaxweynaha soo martay waxa soo martay 4-5 madaxweyne Soomaaliya shantaas madaxweyne ciidamadii ay kala dhaxlayeen ayaa maanta jooga Soomaaliya ciidamadu sharciyaday ku shaqeeyaan sharciga la shaqeeyaa shaqsi kuma shaqeeyaan Soomaaliya
شخص يعني ما أنت لكن سوور كدوان على السدا سوور كل السدا وحي تحي نصيب درada dhacday ciidan Soomaaliyeed oo police ah oo nabadgelyo u taagan inay nabadgelyo ilaaliyaan in intay dad maleeshiyaad ah dileen ay boombooniyaan oo ay dhiiri geliyaan dilka askartaas la dilay dad musharaxiin ah oo raba inay xukun qabtaan macnaheedu maxaa waa in laga shaqeeyo in ciidamada iyo shacabka la iska horkeeno macnaheedu maxaa waa waxa way ciidanka in la naco shacabku ciidanka qoryaha kula dhagaan kadibna maxaa dhacay meesha lagu kala tagaa dhacayso marka ciidanka in la siyaasadeeyo hay'adaha dawladda shaqaalaha dawladda in la siyaasadeeyo oo la handado dabeecad siyaasadda Soomaaliya ku cusub waxa kaloo siyaasadda Soomaaliya ku cusub dadka Soomaaliyeed qabaa'il kala duwan ay ka soo jeedaan siyaasaduna markay muxaafid iyo mucaarad tahay qabiil gaar uma ah waa aragti waxa dareemaysan marka qaar kood in si qayaxan oo aan qarsoonayn loo leeyahay anaka reer hebel oo saas ma ogoli anaka reer hebel ah sidaas ma ogoli waliba qofka sidaas leh dadka Soomaaliyeed oo dhan ayuu cod ka rabaa kuwa u dhaaranaya ku jiro kuwa kale ku jiro siyaasadda noocaasi waa maxay ma qabiil kaligiis dawlad noqon karaa jiro ma jiro siyaasaddu waa aragti qabiil ma ah qabyaaladna ma ah waa jiri jirtay wadankan doorashooyin waa ka dhici jireen musharaxiin waa jiri jireen laakiin de lama qabyaaladii jirin qabiilna ma ahaan jirin marin habaabiska ayay ka mid tahay wadankan ka jiro dadka magacooda lagu hadlayo miyaa la weydiiyay aftidaas